يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. درسيgeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda 6 ee suuratul baqara. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala: إن الذين كوي كفروا قالوا سواء وحاسنا وأك عليهم دشوا كسنا أأنذرتهم أدقتيا وعبصيضيا أم لم تنذرهم أما أمدقنابا لا يؤمنون لبقورا وحق مرمين عيان. ختم الله إلهي أيا ختمي أو طابعي أو حري على قلوبهم قلوب تودا وعلى سمعهم يا مقلدو ذا يا مقلكو ذا وعلى أبصارهم أرجدو ذا وحا هذا كركو ذا غشاوة ضبور ولهم وحانا أسقنا ذي عذاب أو عظيم وين. وعن كسو قد جرني تفسير كي سورة إهاد سورة البقرة. وعن شاقني أول هراء وعشر كان كهري كو شاقني سورة أول كيدا dadka qaybahooda kala duwan in looga warrami doono. Intaan wixii ka horeeyay waxa looga warramay dadkii muuminiinta ahaa oo khullaska ahaa oo muuminimadoodu ay baraxaaleed oo qalbigana khayrka wanaaga ka ictiqaaday, muuqaalka iyo daahirkana khayrkiiyo wanaagii uga dhaqmay oo muujiyay. waxa meeshan labadan ayood looga warramay haddana dadka gaalada ah oo qalbigana gaalada ka gaalnimada qalbiga ku jirtana muujiyay oo ku amal falay oo dadka tusay. dadkuna waxay u qaybsamaan 3 qaybood: gaala cadaysatay iyo muuminiin dhab ah iyo niman munaafiqiin la yiraahdo oo labada qolo u dhaxeeya. labada qolada u dhaxeeyo munaafiqiinta la yiraahdo aayadaha soo socda looga warrami doonaa. laakiin labadan aayadood waxa looga warramay nimankii gaalada ahaa oo kufaarta ahaa oo kufrigooduna oo cadaa, ilaahayna uu qadaray waliba inay kufriga iyo gaalnimada ku dhintaan. ilaahayna wuxuu sheegay subxaanahu wa ta'aala oo nabigiisa nabi maxamed ogeysiiyay gaaladan si walba uu digo oo uu cabsiyo inay saxaqa raacaynin. gaalada noocaas ku tilmaamanna waa gaalada ay u qadaran tahay inay kufriga iyo gaalnimada ku dhintaan. si walba xaq dhagahooda loogula adimo xaq ma raacaya, maxaa yeelay waxa u qadaran inay kufriga gaalnimo ku dhintaan sidii Abu Jahl iyo Abu Lahab ragii lahay weey. Allah marka wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala: innal ladina kuwi kafaru gaaloobay oo kufrigana muujiyay inay kufriga iyo gaalnimada ku dhintaan ay u qadareed sawaa'un waxa eg oo sinan calayhim dushooda ku sinan أأنذرتهم الدقتيا أم لم تنذرهم أما أمدقنابا. وأسكمت لبقارب لا يؤمنون مر مين عيان حقا يوحى لو لا صادري أو خير يوناقة لبقارب مر مين عيان محايا لأم قدر رارنتانوية. ختم الله إلهي أيا وحو دبولي أو حري أو تيم برساري على قلوبهم قلوب يدوذا يا قلب يدوذا يو على سمعهم مقل دوذا
qalbigoodu waa xiran yahay khayr ma galo xumaan ku jirtaahina kama baxdo maqalladooduna ilaahay ayaa xiray subxaanahu wa tacaala oo sajalay oo khayrka ma maqlaan maqalladooda iyo dhagahoodu wa calaa absaarihim indhahoodana waxaa ahaaday korkooda ghishaawatun dabool ayaa ahaaday indhahana xamila ka saaran way ka daboolan yihiin indhaha oo indhaha xaqa kuma arkaan qalbiga xaqa kuma fahmaan dhagaha xaqa kuma maqlaan indhahana xaqa ku arki maayaan intaba yaa ka qunfulay oo ka xiray allah subxaanahu wa tacaala quluubtuna waa bayna usbuucayni min asaabici araxmaan laba faroodoo faraha ilaahay ah ayaa quluubtu u dhaxaysaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuqallibuhaa kayfa yashaau ilaahay sow doonuu quluubta u gadgadiyaa kuwan gaalada ah oo kufriga inay ku dhintaan loo qadaray ilaahay ayaa quluubtooda gadiyey oo quluubtooda u gadiyey dhanka kufriga iyo xumaanta ilaahayna waa muqallib alquluub nabiguna ducooyinka ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahaa yaa muqallib alquluubi habbit quluubanaa calaa diinik kan quluubta gadgadiyow quluubteenna iyo qalbiyadeenna waxaad ku sugtaa diintaada ku sug kuwan marka waa kuwa ay xumaan u qadaran tahay aayad kale ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'athum kullu aayatin xataa yaraw alcadaaba alaliim kuwii ilaahay kelimadiisa subxaanahu wa tacaala ay korkooda ku waajibtay kelimadda allo ah inay ahlu naar yihiin laa yu'minuuna xaqa ma rumaynayaan walow jaa'athum kullu aayatin aayad walba iyo mucjiso walbaba ha u timaadee xataa yaraw alcadaaba alaliim ilaa cadaabkii xanuunka badnaa ay ka arkaan ama kii adduunya lagu halaagaya ay arkaan ama kii qiyaamaha iyo qabriga ay kala kulmaan xilli aan cabaad waxtarin ayay cabaadi doonaan ilahay marka wuxuu yidhi gaaladan khatama allahu ilaahay ayaa wuxuu xiray calaa quluubihim qalbiyadooda iyo wa calaa samcihim maqalkooda iyo maqalladooda wa calaa absaarihim aragyadooda iyo indhahoodana waxaa korkooda ahaaday ghishaawatun dabool oo xaqa uma jeedaan walahum waxaan u sugnaaday dhanka kale cadaabun cadaab oo cadiimun weyn maalinta qiyaamo wa min annaasi dadkana waxaa ka mid a man ayaa ka mid a yaquulu dhahaya aamanaa waxaan rumaynay billaahi allah ayaan rumaynay iyo wa bilyawmi alaakhiri maalintii dambe wamaa hum mana ahaanin bimu'miniina kuwa xaqa rumeeyey iyo waxa ay sheegayaan inay rumeeyeen kuwa rumeeyaan ma ahaanin halkan waxaan ka gudagelaynaa wax ku saabsan ka warramid laga warramayo niman la yidhaha munaafiqiin munaafiqiintu waa dadka khayrkana muujiyey sharta iyo kufriga iyo xumaantana qarsaday munaafiqiintuna waxay soo ifbaxeen markii nebigu magaalada madiine yimid kadib calayhi salaatu wasalaam qur-aanka magaalada maka ku soo degay loogama sheekeeyo munaafiqiin wax la yidhaahdo munaafiqiintu marka maka ma joogi jirine waxay joogeen magaalada madiina nabigu markuu magaalada madiine yimid calayhi salaatu wasalaam nimankii reer ansaar oo aws iyo khasraj ahaana ay nabiga soo dhoweeyeen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa in badan oo dadkii carbeed oo magaalada madiina deganaa ayaa waxaa u cunanmi waayey oo u laqsami waayey inay nabiga raacaan calayhi salaatu wasalaam nabiga dacwadiisii waa ay diideen inay qaataan kufriga iyo gaalnimadii ku baaqi noqdeen ayagoo kufriga iyo gaalnimadii ku baaqi ah gaalnimadoodana bannaanka la taagan ayaa waxaa dhacay dagaalkii beder oo ilaahay xaqa iyo baadilka ku kala saaray dadka muslimiintana lagu guuleeyey gaaladii soo duushana lagu jabiyey markaasee waxay arkeen dowladdii muslimiintu inay xoogawday kadibna waxay go'aansadeen intoodii badneed inay islaamnimada muujiyaan qalbigana gaalo iyo kufaar ay ka ahaadaan hoos gaalada ay kala socdaan khabarka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa gaalada ay u geeyaan gaaladaasoo ama yahuud ah ama carab ah nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisana ay u sheegaan inay tawxiidsadeen oo ay muslimeen oo ay raaceen markaasay tawxiidkii ku dhawaaqeen laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullahi waa tawxiidsadeen salaadihii shanta ahaayna nabigay la tukanayeen calayhi salaatu wasalaam soomka waa soomaayeen xajka waa xajinayeen jihaadka iyo dagaalka mararka qaar way gelayeen oo nabiga way raacayeen calayhi salaatu wasalaam qalbigana waa ka gaalo waxay aaminsan yihiin xooggoodu inuu yahay xoog doofaar lagu eriyey hal bacaad lagu liso inuu yahay xooggoodu
ay aaminsan yihiin waxa ku kalifay waxaan qalbiga ka jirin inay muujiyaana waa cabsi ay naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda ay u baqayaan maxaa yeelay waxay og yihiin hadday kufrigaan iyo gaalnimadan ku sii baaqi noqdaan waxaana ay sii muujiyaan kufriga iyo gaalnimada ah gaalada lala dagaala in lagu daraayo haddii gaalada lala dagaala lagu darana naftooduna qataray galaysaa maalkoodana qataru galaa oo maalka waa laga qaadana carruurta iyo dumarkana waa laga qafaalana si intaas ugu badbaado ayay waxay ku dhawaaqeen iimaan iyo tawxiid aan qalbiga ka jirin nabigeena la joogi jireen calayhi salaatu wasalaam nabiguna qaar ka mida wuu yaqaano waa loo sheegay waxaa ka mid ahaa kii ra'iiskooda ahayo cabdullahi ibnu ubay wuxuu ahaa nin u sharaxan boqortooyada reer ows iyo reer khasraj in madax laga dhigaa la rabay markii nabi maxamed meeshii yimid calayhi salaatu wasalaam cid kaloo hidi meesha magaalada madiina ah ka talinaysaa ma jirto kursigii iyo wuxuu waayay madaxtinimadii saa darteed cuqdad iyo colaad ayuu xirtay cuqdadii iyo colaadiina dad badana ku raacay oo ku duufsaday ninka baqabiilana wuu ahaa codkar afmiishaarana wuu ahaa dad badana marka raacay oo duufsaday oo raggii magaalada madiina deganaa jira ah waxay ay marka kuwa naftoodana la badbaadiyo maalkoodana la badbaadiyo ehelkoodana loo badbaadiyo ayay ahaayeen laakiin dadka muslimiinta dhibaato badan ay ku haayeen nabiguna in badan waa ka yaqaan calayhi salaatu wasalaam laakiin ma dili jirin sababaha uu dili jirin waa maxay sababaha waxa kamid ah in nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaan nacahoon dhibsanaa dadku inay ku sheekaystaan ama carab ku sheekaysato nabi maxamed saxaabadiisii inuu laynaayo say muuqaalka saxaabadii nabiga u egyihiin salaadii nabiga la tukanaya calayhi salaatu wasalaam waa shahaadanayaan jihaadkii galayaan soomkii soomayaan xajkii xajinayaan sakadii bixinayaan dumarkoodu waa xijaaban yihiin muuqaalku waa dadkii muslimiinta ah dadku marka qalbigooda uma jeedaan haddii nabiga inta loo waxyoodo qaar ka mid ah la yiraahdo hebel iyo hebel waa munaafiqiintii ka mid yihiin allah ee nabigu uu dilay calayhi salaatu wasalaam dadku waxay u qaadanayaan inuu saxaabadiisa dilaayo dadkii khayrkii wanaaga qaada lahay ayaa meeshaas khayrkii wanaagii uu ku seegaa marka saas waa looga tagay waxa kale oo la yiri waxa looga tagay inaan dadka wada lagu furin wadadaas oo ah in dadka la yiraahdo qalbigaada waxa ku jira dartiisa aad u dhimanay nabigu wuxuu dhigi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu zakah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala allah haddii sida daahirka ay dadku hoggaansamaan naftooda iyo dhiigooda iyo maalkoodaba way iga badbaadiyeen xisaabta xaqiiqadooda la xisaabinaana allah dushiisa ayay ahaato dhigi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka wadada saan loo furina dilkooda waa looga leexday laakiin niman aad u dhib badan ay ahaayeen gaaladu waa cadow laakiin waa cadow khariji ah oo dadka muslimiinta banaanka ka jira ayaguna waa cadow laakiin waa cadow daakhili ah sirti muslimiinta iyo awrada muslimiinta iyo meesha muslimiintu ay ka jiricsan yihiin iyo waxa soo dhamay daalacanaya markaas ay gaalada u gaarsiinayaano gaalada u faafinaya haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam dili jirin laakiin laga warana nafta looga qaadi jiray iyo cabsi gelin iyo wadna fugfug dad dhibanna way ahaayeen maxaa yeelay dhibba waxa ugu filanba inuu qofkaan waxa u tukana ay noqdaan oo ay yihiin qof asagoo kala cabsiga qof asagoo kala uu ka cabsana u tukana oo u sooma xoolihiisa u bixina oo jihaadka dagaalka u gala oo la ilaaha illa allah ugu qowla marka dhibba uma dhibana ninkan waa dunyada aakhirana waxa sugaya cadaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay marka wuxuu yiri wa min an-nas dadka waxa kamida man ayaa kamida yaqulu dhahaya aamanna waxaan rumaynay billahi allah rumaynay ilaahay inuu kaliya cibaado mudan yahay ayaan rumaynay iyo wa bil yawmil aakhir ya maalintii maalmaha u dambeeyay oo maalinta qiyaamaha ah ayaan rumaynay iyo in la soo saarayo xisaab inay jirto miisaan inuu jiro janna inay jirto naaru inay jirto waxa soo dhan waa rumaynay ayay dhahayaan wal hal ma hum ayagu ay saahanin bimu'minina haqiiqatan kuwa waxaas rumaysan ilaahay inuu kaliya cibaado mudan yahay mar rumaysna shirkiga sahla ah nabigu inuu nabi yahay mar rumaysna ee nin waxay u heestaan nabiga calayhi salaatu wasalaam nin karmeeda oo iska qabsaday malaa'ikta ilaahay mar rumaysna qiyaamaha mar rumaysna jannada mar rumaysna naarta mar rumaysna maxay waxaan u sameynayaan laakiin yukhadi'una allaha ilaahay ayay waxay rabaan inay dhakraan iyo waladiina kuwi aamanu rumeeyay rabaan inay dhakraan
wamaa yakhdacuuna sida xaqiiqadiiyana ma dhagraayaan ilaa anfusahum nafahooda mooye wamaa yashcuruuna laakiin ma dareemayaan inay naftooda dhagraayaan oy hagardaamaynayaan oy dhibaataynayaan ma dareemayaan arrintan munaafiqiintu ay samaynayaan oo ah in islaamnimada la muujiyo qalbigana kufriga gaalnimo lagu qariyo waxay uga dan leeyihiin waa in ay dadka muslimiinta ku siraan sida ay samaynayaan waxay ka dhigan tahay si dad raba inay Allah siraan subhanahu wa ta'ala ilaahayna ma sirmo subhanahu wa ta'ala dadka muuminiintaana ilaahay u sheegaa shartooda iyo xumaantooda sida xaqiiqadiina waxa ay dhagraayaan oo ay hagardaamaynayaan oo dhibaatada u soo jiidayaan waa naftooda say naftooda in arjahannama u shaqaynayaan ilaahay marka wuxuu yiri yuqaadicuuna allah ayay dhagraayaan iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyay ayay dhagar iyo shirqoor u maleegayaan saas isku dayayaan waa cul ilaahay iyo cul muslimiin wama yakhdacuuna sida xaqiiqadiina ma dhagraayaan illa anfusahum al-anfus wa jam'u nafsin naf jamceedu waa anfus Soomaalida markii halka xabo naf lagu yiraahdaa jamca laakiin waxa la leeyahay nafo alale sida laftaba loo leeyahay lafo laxdana loo leeyahay laxo waa isku wada wasan kabta maxaa la leeyahay kabo ayada laftirkeeda tabta iyo kaartada markii la jamci tago tabo ayaa leeyahay tabooyin ama tabo naftana waxa la leeyahay nafo alale ayada laftirkeeda marka waxa ilaahay yiri wama yakhdacuuna ma dhagraayaan illa anfusahum nafahooda mooye wama yashcuruuna laakiin ma dareemayaan inay naftooda dhagraayaan niman siyaasad ciyaaray isku heestaan niman naftoodii ka badbaadiyay inay nabi maxamed raacaan alayhi salatu wasalaam iyo in nabi maxamed alayhi salatu wasalaam dagaalkiisu iyo dhibaatada nabi maxamed uu gaarsiin lahaa inuu gaarsiiyo niman iska badbaadiyay isku heestaan laakiin xaqiiqatan waa niman dab isku shiday waa fi qulubihim ilaahi wuxuu subhanahu wa ta'ala qalbiyadooda waxa ku sugan maradun cudur iyo jirro فزادهم الله إلهي وحو سيادية مرضا عذر ولهم وحان أسقنادي عذاب أليم وحنوجيا بما كانوا يكذبون بنتي أي شيء ين سببتيت أي إلهي سبحانه وتعالى هو عذاب الدياري الله وحو شيء سبحانه وتعالى ضد كان إني قلبي كجريهين جريد قلبي كهيدنا وكفر قال لماذا قلبي وجرته هي شكك أي خيرك وناك شكنا أيان هي النفاقة iyo xumaanta qalbiga ugu aasan waayo waxa la sheegayo qalbiga ka hayo oo jirada ah jirada jirkaahina waxa ka dhib badan jirada qalbiga ah ilaahay naga badbaadiye ilaahay marka wuxuu yiri fi qulubihim qulubtooda iyo qalbiyadooda iyo aqliyadooda waxa ku sugan maradun cudur wa munaafiqiinta fazaadahum allah ilaahay wuxuu u kordhiyay maradan cudur cudurka cudura lagu kordhiyay maxay yeelay mar walba aayadu soo degto oo quraan soo dego oo quraanka beeniyaan nifaaqi iyo xumaanti iyo kufriga qalbigooda ku jirtay nifaaqi iyo xumaanti iyo kufriga qalbigooda ku jiray waa la sii kordhinaa oo sii kordhaa hakalo leey kara fazaadahum allah ilaahi u kordhiyo maradan cudur walahum waxaan u sugnaaday dhanka kale qiyaamaha cadaab oo aliimun waxanuujiya wa cadaabki jahanname maxay cadaabku ku mudan yihiin bima kaanu yakdibuna been sheegidii ay been sheegi jireen sababteed ayaa cadaabka xanuunka badan qiyaamaha lagu galinaa beenta sheegi jireen waa maxay inay dhii jireen waa aan rumayna xaqa iyagoon xaqa rumayn waayo beentaani wayda qila lahum hadii loo yiraahdo la tufsidu fil ardi dhulka fasaadinina qaaluu waxay leeyihiin inma in kala maani nahnu annaga ayaaba muslixuuna kuwi dhulka hagaajinaya ala bararuga ilaahi subhanahu wa ta'ala innahum ayaguhum ayaga ayaa almufsiduna kuwa wax fasaadiya walakin la yash'uruna ma dareemayaan inay mufsidin yihiin isma dareensana nimanka munaafiqiinta markii la yiraahdo dhulka fasaadinina oo gaalnimaha ku fasaadinina oo nifaaqa ku fasaadinina oo sharci khilaafa ku fasaadinina markii la yiraahdo waxay leeyihiin anagu dhul ma fasaadinay dhulka anagaaba hagaajina dadka ahlu aqliga ah dadka wax garadka ah dadka siyaasadda fiican ciyaaray waaba anagay leeyihiin muslimiinta maaha iyo muuminiinta dhabta ah oo nabi maxamed iska daba shubay oo iska raacay oo nabi maxamed wuxuu u meeriyay iska meersana kuwaas waxay leeyihiin waa wax magarato kuwa seefta banaanka la istaagay oo kufrigoodii cadeystay oo naftoodii halaagay oo ilmahoodii dhibaato u horseeday iyo qax iyo barakacna waxay leeyihiin waxba ma gartaan laakiin kuwa wax gartaa yeeyihiin annaga munaafiqiinta weey
maxaa yeelay naftanadii nabadgelyo aan u helnay caruurtanadii nabadgelyo aan u helnay maalkanagii nabadgelyo aan u helnay maxamedna ma aanaan raacin nimankaas gaalada ahoo lala dagaalamaana ma aanaan raacin naftanadiina waa badbaadsanay yaa naga caqli badan lafcaday toobin ku hayaan dadka u liita weey ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari weeyo maalinta qiyaamo meesha ugu hooseyday naarta ka galayaan allah marka wuxuu yidhi waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo laa tufsiduuha fasahaadinina munaafiqiinay fi lardi dhulka ha fasahaadinina haddii la yidhaahdo oo ahlu khayrku ay saas dhahaan iyo saxaabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam fasaadka dhulka oo laga reebahina waa dhulkaoo ilaahay lagu caasiyo qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kala maahne naxnu annaga ayaa muslixuuna ah kuwii dhulka islaaxinayo dhulka hagaajinaye annagaa dhulka hagaajina intaan annaga ahaynu dhulka wayba halleeyeen way nadaam guuriyeen ilaahay marka wuxuu yidhi alaa baraaruge muslimiinay baraarugu hurdada ka toosoo indhaha kala qaade innahum ayagu munaafiqiintu hum ayagu ayaa almufsiduuna kuwa wax fasahaadiye ah oo dhulka fasahaadina maxaa yeelay munaafiqiintu way ka liitaan gaalada muuqata walaakinse laa yashcuruuna ma dareemayaan inay mufsidiin yihiin inay siyaasad fiican ciyaaraan ay isku haystaan laba meelood ay ka cabaan gaalada ceelkooda iyo muslimiinta ceelkooda labada waa ka cabaan waxaasay marka siyaasad fiican u haystaan waxaasay wuxuu haystaan caqli waxaasay wuxuu haystaan siyaasad iyo kaarta wanaagsan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala dad wax garta maaha dadkaani sifooyinka marka munaafiqiinta iyo tilmaamaha munaafiqiinta suuraddaanu way ku dheeraatay cabbaar ayay ka sheekayday haddana cashirkan kuma dhammaystiri karno laakiin cashirkan ku xiga ayaa waxaa noogu imaan doonaa sifooyin kale oo munaafiqiintu ay leeyihiin laakiin darsigeennu maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillahi altawfiiq اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين kuguma qasbaayo inaad faafiso balse Allah dartii ku faafi